waan caawiyaa wax yar yar oo soo qabtaa laakiin waxa awoodin u soo qabtay aan qaadi karin bulshooyin ka guulaystay waxa ay gacan qabtaan hal abuuraha ee maaha kuwa af iyo idin ula taga hal doorka Salma Maxamed Abshir balse dadkay u yaqaanaan Salma Yariisay waa gabar daayar haddana labada gacmood naafaka ah waxayna isticmaashaa aaladda dhalinta inta ugu badan ay ku soo gudbiyaan muuqaalada gaagaaban ee maada leh ee TikTok waxayna leedahay taageerayaal badan oo ku dhiirigeliyay guusha Salma TikTok markaa ku soo galay waxa ila garab qabtay walaalkayga fiidiyoga ugu horeeyay iga duubay tan kalena waxa waa abtigay iga ilaali ayaa xeerka soo gaarsiiyay birta idin muuqata waa halka Salma labadeeda gacmood oo ay ku weeday haraadiga walxaa qarxa dhibaatooyinkii ka soo gaaray waa tan sharxaad iyadoo ka bixinaysa Salma jooga waxa waaye goobtii aan ku waayay labadeeda gacmood oo aniga garaacay wiil dariskeena ay keenay waa garaacay oo igu qoraxday buuda dii jooga ii gurno ya qofta admayno wax walba isku day badinno isku day gurno waxa u birinay okay waxay barteen cashir haddana waa isku dayaa ما قبل كريه دين ولا حناقي واقف سكرتا ها واقف سكرتا كل أنا واقف سكرتا وأنا صقرت وأنا علوية halkee ayuu gaarsiisan yahay heerkeeda waxbarashada yaa ku dhiirigeliyay isticmaalka aaladda TikTok iyo kuwa kale ayaan wax ka weydiiyay Salma waxbarasho waan dhigtaa mana kaniye jabin waligeena ma kaniye jabi dooni hadafkayga waa inaan wax bartaa teeda kale inaan digtooreysan noqdaa dadka miskiinta caawiso dadka aniga camal in aan caawiyo ayaa rabaa waxa aan ku caawi karo in aan helo waaye aniga TikTok social media marka ku soo biiday dadka mi aqoonin laakiin hadda marka waddoonku maraa dadka way la hadlayaan way xushmeynayaan way soo dhaweynayaan dadka way jecel yihiin hadda meel la maraayo way la hadlayaan diya ay u soo dhaweeyaan aad daawado waxa waa baabajey Abbas Faiso deexdan nuushe moodiyo Seeman Tacdiigal Mudug Al-Fatah halaas waa iyo inta ka badanba noloshu waa silsilada waxaana mar walba isbarbar socda guushii guuldarada Salma nabarada xanuunka lahaa ee soo gaaray kama aysan reebin dhigeeda in ay wax la wadaagto dadaalka ay u gashay inay wax la qaybsato asaageeda waxayna sidoo kale ku dhiiratay inay wax barato si la mid ah beddelka gacmaha waxay wax ku qortaa lugaha hooyadu waa tiirdhaxaadka qoyska hooyana Emma Cabdullaahi Nuur waa hooyada dhashay Salma Maxamed Abshir mar walba waxay mas'uuliyad iska saartaa kaafinta qoyska iyadoo duruufaha nolosha ila daalaadhacayaan qoyska waxayna u dhabar adeegtay in ay gabadheeda naafa waxayna sidoo kale go'aansatay in ay geyso waxbarasho si la mid ah ay ku dhiirigeliso isticmaalka aaladda TikTok waxbarashada ma sha Allah dugsi quraan hadda dhigataa inkastoo iskoolaadka caqabada ay ka yimaadeen xageeda maadaama gabadhan iskoolaadka lagu barto form iyo waxa lagu bartaa iyo miis iyo kursi ayadana miis iyo kursi ma xamil karto oo qof lugta ku qorta iskoolna wax laba aqriyo waxa la qoraa marka caqabadii badan nooga imaaday adku dhowr iskoolan tagay kursi iyo miis isku dhagan inaan sameeyo marka dambe kulli uu soo aroortay anina wali ma ana sameeynin waxa saddex quraanka bal heer gaarto inkasta u fiican tahay maadaama ay tahay social media ku jiro inay wax qorto waxna aqriso ma sha Allah social media horta markaan soo gelinayay galab kooyto waxay ugu dhalatay 8 saac duurnimo inaan gabadha social media soo geliyo waxyaabaha sababayna waxay ahayd yani gabadhan maadaama ay tahay qof qaba baahiyaha gaarka inaysan iscudadeynin isdhihinin yani kaliga aad tahay bulshada soo dhex gasho dadka Soomaalida arkaan ayadan ku faraxdo anigoo ah codka Salmana ku hadlaya keegana ku hadlayo
kan familkana ku hadlayo maadaama aan qoys dan yara awoodi karna gabadheeda inaan gacmo u iibino gacmuhuna yacni yihiin gacmo macbalo hadda ka hor waxaan geynaa digfeer aan dhehnayn istaalka bisha cas waxayna dhaheen gabadhan gacmaheeda ma hayno oo gacmo waxaan haynaa caag ah oo dhis dharka u qurxinaayo gabadhaanna waa gabar yar waa 12 jir hadeertaan mustaqbal u baahan tahay waxay u baahan tahay qangaar gabarnimo iman karo xaalado oo wiilka tabeen ay gabar tabaysaa jirto marka gabadheeda bulshada Soomaaliyeed meel kasta mar kasta waa dhaca cod dheer iyo cod gaaban waliba shacab kaliya shacab iyo dawlad inta waa leeyahay meel walba Mayrisay nolosheeda ma aysan ka reebin inay baahiyaha gaarka ah qabto asaageed mar walba waxa ay jeceshahay horumarka iyo sidoo kale waxbarashada Yuusuf Maxamed Yuusuf UNU Asal TV Muqdisho